waa qaybtii koowaad. waxa uu moodayay qofka albaabka soo garaacaya inuu yahay deliverigii cuntada uu dirsaday, balse waxa ay ku noqotay xaaskiisa. waa uu naxay. albaabka inta ay xirtay ay ku tiri ii bannay waddada. inta uu fadhiga eegay ayaa waxa uu arkay gabadha gudaha ku jirta keeshadigeeda. inta uu qariyey ayay dib u soo eegtay. isaga oo naxsan ayuu ku yidhi xaggeed ka timid gacaliso. iyaduna way caraaratay oo hadal kule ayay ku tiri. isna waa uu naxsan yahay. kolba meelaha ayuu eegeegayaa. marka ay damacdayna gudaha u gasho waa uu u yeeray isagoo ka baqanaya inay aragto gabadha gudaha ku jirta. intay ka shakisay ayuu ku tiri maxaad qarinaysaa adiga adigaalbaabkaiga celinaya. inta uu laabtan geliyey ayuu isku dayay inuu sasabo, balse way ka diiday oo waxay bilowday inay raadiso waxa uu qarinayo. isagu waa uu naxsan yahay oo gidaarka ayuu isku nabayaa. waxa ay raadisaba way ay soo weyday oo waxay ku soo noqotay ninkii. waxa aynu ku tiri meel qaldan ayaan ka fikiray ee raalli noqo. kadibna intuu meelgaar la istaagay ayaa uu sasabay. waxa uuna ku yidhi iska soo bedel dharka, anna waan isku kaasii diyaarinayaa. marka ay baxday ayaa waxa uu u cararay gabadhii halka uu ku qariyey. kadibna bannaanka ayuu u soo saaray oo waxa uu ku yidhi soo bax, waad baxaysaa markan oo waxaa timid xaaskayga. inta uu albaabka u sii wado waxaa albaabka sii taagnaaba deliverigii u keenay biidsaha. labadooda waa ay naxeen. waxa uu ku yidhi iska celi, hadda looma baahne. balse ninkii deliveriga ayaa ku yidhi suurtagal ma ahan, adiga ayaa dalbaday waana qaadanaysaa. waxa uu u dhiibay $50 haraagana adigu qaada ayuu yidhi. xaaskiisana way soo diyaarisay oo waxa ay soo aaday dhankoodii. markii ay dareemeen ayay oroday gabadhii. ninkii deliveriga ahaana waa uu yaaban yahay. ninkan isaga oo yaaban ayuu biisaha u dhiibay xaaskiisii. xaaskiisana way qaaday miiska ayay saartay. la soco qaybta labaad ee sheekadan.